odayga weyn aa u jeedin kulaha nadiiraan dhalay aba idhale waa idhali karaa kow laakiin markuu hadda isoo sheegay kow horti first one intii ugu ogaa marka labaad ku soo hadhay ninka ka hoos hadlaya ee odayga weyn kilifaya walaal adigu amal ma raadsatid walaal adigu ma magac samaysatid qof bil aadana magacu samaystay inaad qof kale ku soo lifaaqo waa laga fiican ana alxamdulillah rabbil alamin abahi waa la yaqaana maxamed ciga ilbiraal lahaa ilaahay wuxuu geystay meesha jeclaa qof walba uu taagan yahay ilaahay u naxariisto abahi uu dhintay waanan ogahay naag hadda abahi daranaysa ma ihi marka oo adigana waa lagu soo qalday hadii minjin jaadka intii ku goosay lagu gaday qofkan dhaliile ha idhaliilin عيب كسلين هاي وانا اللي انا اقول امن ادن حسن على مقعد الليره هويدا محمد الشيخ محمد عمر ليره ابتقد ايد هويدا عشان عوار ليره هويدا ايدنا عليها ليره هويدا ايد حليمه شروع ها بالشيخ كبلو انا اقول حليره ادن حسن دوله ان دغمدي ku dhalatay gobolka Gadbaar ku dhalatay meeqa sana jirtaa waxaan jiraa 72 sano 72 sano ciidanka xagee ka qortay ciidanka waxaan ka qortay kismaayaan ka qortay ciidanka qortay sanadkee qortay waxaan qortay 77 على ساك جيبوتي عسل جيبوتي qortay guuteegta sanad guuteed waxaan ka darsanay 60 sanaad 160 sanaad gobolka gede gaar ahaan gaas 7 baan ka tirsanaa oo gobolka gede ka tirsanaa say ku Hargeyso Hargeysa maana tagaynay Hargeysa hooyadeed waxay deganeed anigu kuma digaalka ka soo noqday ka bacdi ayaa waxaan tagay meesha leeyahay Armis aan tababar uga baxay baydhaba inta liiga amray Armis nadiir hooyis Armis ka maadamiya Armiska ma ku gurtay waxa ku guursaday istaadi Muqdisho warka Armiska aan ka baxay tababarka ka baxaan istaadi Muqdisho aan tagay hooyadeed magaceed Xamdi Sheekh Maxamed Umar Baliira meega ku dhashay nadiir maxay ku dhashay hal gabar ah magaceed نذيره بحال آمن آدم حسن نذيره وفنك كل بحده هاي فنك كل بحد سنة قرصت قانا سنة قرصت سنة كان قرصوا قانا سنة قرصت وحان كل سقاشنك سقاشن قرصت ان واحد جوب جوجو مركاتي مو هيسا اجو عيدك هيك لما جو قارنا واد انت قارنا ونول حلقة قرصتي سقاشنك كدب maxaa ku kaltay naayday hooyadeed xaba burburkan ku kaltay kadib xagee ka dhacan qayda waxay ka dhacday markii dambe kulka qabtay dhacday dib ismaan arag intee aad Hargeyso adigana waxaan aaday gobolka Geedan soo aaday wax xiriir ma la sameys wax xiriir daan la sameyn wax iga qabtay waan waay oo hooyad ma la xiriirtay haye ma ana heli haye warkii jira kan wali xiriir lama sameeynin xiriir lama sameeynin waa raadi waay baafin waa raadi waay haye marka dambe adiga marka dambe gabadha ii soo gashay anoo joogo gobolka Geedan soo wacday degmada Baareen anoo hadda joogo yaa ku soo wacday ayda ku soo wacday abay aadan xasan cali waxaan joogaa bay tiri aab Hargeysa haye hooyadeena Hargeysa joogtaa anigana aaba waxaan joogaa nin baan reer dalaan labadii oo u dhalay way dhahay haye haddana waxaan joogaa Hargeysa joogaa haye hadda marka iyada anagu waxaan dheer aaba waxaan joogaa gobolka Geedan gaar ahaan degmada Baardheer halkaas war isku kentay aaba waan ku imaanaa insha Allah ilaahay qowlkiisa waan ku imaanaa ilaahay warka jira kan inaba hadda maxaad marka ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa inay ii imaato gabadhay gar iyo gardaraba inay ii imaato aaba ila soo hadasho meeshii joogtay ku nooshahay waxaan ku maqlay Muqdisho inay joogtay in kale ma og laakiin dhowr jeer baan la hadlay ku imaanayo dhaad Muqdisho ana warkeeda ku maqlay Muqdisho joog waxa war aan ka haymaa ninka qabiiban mar la hadlay adeer oo ku imaanayo dhahay asaga ma wareysatay haye wuxuu ana dhalay baan haye waxaan ku dhahay dhigaman iskaman war hayno ciidanku hadda ku raaxsan oo hadda ilmaha gabar bay u dhisay aan maqlay waxa jawaab damana waa kul saada soo jawaab dab iima soo celin adiga gabadh ma ku guursanay kaama doonin ba ma igama soo doonin haye warka jira kan asaga magaciisa ku sheegay ina aydiid baa leeyahay baa wiil ina aydiid baa leeyahay ku haye waxa aydiid inta ma dhaafin kari awlaadii hore ay dhashana awlaadii anu ba ka dhintay labana oo nool yihiin haye waa kan reer dal wiil oo dhintay ba ka dhintay haye warka jira kan asaga marda ma xiriir lama sameeynin warkii dambe xiriir alla soo la hadlayna jawaab dam iima soo celin waa kul soo hada adeer macaan insha Allah waa mashquulsan reer soo waxa ka dambe iima hadal kale iima soo hal mar wax nagu celisaa hooyadeed markaad baranayseen xagee isku barateen Muqdisho ka intee goobta Ciise Cabdi meesha miisaanka dhuxusha istaadi Muqdisho ayda markaas meesha mid deegaan buu ahayd mise shaqo u joogtay waa deegaan bay u ahayd hooyadeed baa nooleed aabaheedna
ابيض ماي اقون بهد هذيك مركز قبت شعب محتاج waxaan ka hay difaac cirka ayaan meeshan carbis ugu soo baxan meesha yaan noo yeelay meesha ku yaala kadib arooska intuu ka dhacay arooska wuxuu ka dhacay istaadi muqdisho ka dhacay kawaanka huruwa hortiisa telefishinka inta dhaxis miisaanka dhuxshalkaas ku soo aroosay meesha ku aroosteen ka dambe adiga xageed dimaad marka aniga markii dambe burburkii baa igu dhacay qabti waa kala guur baa dhacay qab baa dhacday aniga markii waxaan u baxay gobolka soo aaday ka dambe ilaa waagsi la xilligan wax xiriir ma sameeyeen gabadho ila soo hadashay ma ogi oo hargeysa ila soo hadashay wax xiriirna lama soo waa baafi waaye xir idul meel uu ka soo waa iska aamusnaa marka saayay ilaahay marka hor masku dashinaa social media ka baafiso maya kamera iyo baafin ma wax kale aaba ma helin wali ma helin haye hadda waxa laga yaabaa inay ku dhageysanayso maxaad ugu baaqaysaa ugu baaqayaa ubad aan dhalay waxaan rabaa hooyadeed iyo ayadaba waxaan rabaa macnaha inay ila soo xiriiraan siiba haddana gabadha aan dhalay inay ila soo xiriirtaan doonayaan ay kula soo xiriirto dadka kale oo bulshada ama kaag dhow maxaad ugu baaqaysaa ayakana waxaan u baaqayaa bulshada waxaan ugu baaqayaa nadiira nabis inaan aniga dhalay aamin aadan xasan cali magaceeda la yiraahdo hooyada maxamed sheekh maxamed cumar la yiraahdo abtigeed ayad hooyada dhashay cawaale la yiraahdo hooyada ayaydeedna la yiraahdo hooyadaydeed xalimo sharwac bulshada maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa gabadhaas inaan aniga dhalay ayna iga maqantay baaqayaa fartiintayda inay gaarsiiyaan iyo codka aniga